waa dareen farxadeed sida ka muuqata qoyskan kadib markii uu eebo ugu deeqay gabadh xasan cabdinuur geesay iyo xaaskiisa hodan ciise guutaale 16 bishan maalin ka hor dhalmadeeda ayaa la geeyay isbitaalka kalkaale degmada hodan halkaas ay ku qaabileen dhaqaatiirta isbitaalka taasoo keentay in saacado kadib uu alla ku irsaaqay luul xasan cabdinuur geesay xasaasi Dr. Jibriil Cabdi Maalin oo ka mid ahaa dhaqaatiirtii fulisay qaliinka ayaa sheegay in qiimeyn ay ku sameeyeen xaaladda hodan ciise ayna u soo baxday in la kala badbaadiyo labada dhinac kadib markii ay ogaadeen inaysan caadi u foolan karin waxay noo imaadeen maalin ka hor noo imaadeen ciyaaryahan xasaasi iyo xaaskiisa ayagoo laba qof ah kadib markii aan qiimeynay oo qiimeyntii iyo evaluationkii kadib waxaan go'aansanay in maamadii cunuga la kala badbaadiyo oo maamada la qalo sababta loo qalayna waxay ahayd ayadoo hooyada miskaheeda aad u yaraadeen alxamdulillah hadda cunugii waa fiican yahay gabadh ilaahay ku irsaaqay maamadana way fiican tahay dhammaantoodna way caafimaad qabaan haddana waxay diyaar u yihiin inay xaafadooda aadaan insha allah xasan cabdinuur geesay xasaasi oo ahaa mid garab taagnaa xaaskiisa ayaa ka hadlay dareen ahaan sida uu yahay waqtigan dareenkiisa kadib markii loo sheegay inaysan caadi u dhali karin xaaskiisa xilli sidoo kale mar walbaba xaaladeeda caafimaad ay la socdeen dhaqaatiirta isbitaalka kalkaal bini'aadanka markuu ay foolanayso xanuunkeeda waa dareemi kartaa ilaahay hadartaane wuu kala keenay way wanaagsan tahay xaaladeeda hadartaan okay waay runtii waxay hadda aan dareemi karaa farxad aad balaaran wallaahi horta waxaa sabab ah inay maaragta aala socdo isbitaal kalkaal u keena iyadoo marayso bisha 7 ilaa iyo bisha 9 ay la socdeen caafimaadkeeda runtii inay waqti ay ku soo aadisay dhalaysan iyaga noo sheegay ee computer la saaray marka adeeganeen waxay ahayd waqti loo sheegay inay dhalayso hadartaan ee caalamka waa la hormaray qofka markuu dhalaa computer la saaraa taasna waxaan ugu mahadcelinaa isbitaal kalkaal oo xaaskeyga shaqo badan ka qabatay runtii waxaan dhihi karaa isbitaal kalkaal waa isbitaal wanaagsan iyaga nacaabiye gabadhan hadartaan kuma dhaleen caadi waa la qalay dhakhtarka oo cadaanka oo qalin waa mahadcelinaa shaqaalaha isbitaal kalkaal aad la soo dhabeeyay ugu dambeyntii laacibka dhexe ee kooxda horseeda xasan cabdinuur geesay xasaasi ayaa kaga mahadceliyay garab istaagii ay u sameeyeen bahda isboortiga iyo si lamida asxaabtiisa kuwaas oo hambalyo hawada u mariyay kadib markii ay maqleen dhalashada gabadhiisa asxaabteeda dada inta kusoo koobi karin oo tiro badan ayaa farxadda xaladhan il qaadanaya ilaa isaaka ilaa hadartaan wiil way socotaa farxadda runtii waxaa dhihi karaa ducadiina iyo maaragta iyo garab joogiina iyo wanaagiina intaan aan ku gaarnay aada u mahadsantihiin daawadayaal sida idin muuqata halkan waa isbitaal kalkaal halka ay ku dhashay xaaska ciyaaryahanka kooxda horseed ee qaranka Soomaaliya xasan cabdinuur geesay isbitaal kalkaal horay sidaan oo kale waxa uu qalliin ugu sameeyay ciyaarta kubadda cagta gaar ahaan xidigii matalayay xulka kubadda cagta ee Jubbaland kuwaas oo qalliimo dhanka jilbaha iyo seedaha uu kaga sameeyay Maxamed Cabdullaahi Axmed Digrey Muqdisho Cable Sport isbitaalka kalkaal